السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتوا راودي سلامية مركو ورسا سبسكرايب كلا دافين لايكتا رونهانتي أرين نحدين لا أيا وحي كدا عدي قبل كبايا ودن كجرماني مقالة كتالو لدى شفاينفورد قبل الصوماليات ويش كده قريي أيا وحي رونهانتي دعدا لياب ليو كيستي المية ريدا شي المير أو صدح بلوت شرا أيا رونهانتي قورادي سبحان الله قبل oo magaceeda aan rabin halkan ka sheego ayaa waxay wadanka soo gashay muddo imika laga joogo dhowr bilood waxay ka soo gashay xagga iyo Faransiiska asal ahaan gabadhan si xogteeda ku helay ka timaada Greega dad badan oo garanaya aan wareysanay dabadeetana gabadhan ay runtii xanuun xagga dhimirka qabtay dabadeetana ay qaadan jirtay dawooyin markay joogtay Greega iyo markay joogtay Faransiiska kadibna ay ka soo carartay halkii ay joogtay dabadeetana halkan ay timaaday wadanka Germany dabadeetana khaladka ugu weyn ee dhacay sel sheegay waxa weeyaan gabadhan inay qaadan jirtay dawooyinkaas oo loo sheegin wadanka Germany dawooyin qaadatay gabadhan dabadeetana iyaguna ay markii qaxoontinimo isku dhibtay kaan la yiraahdo ku yaala magaalada Schweinfurt lagii muddo markay joogtay ilmo yar u dhashay dabadeetana usbuuc hore la soo dhaafay ayaa waxa dhacday dhacdo aad u falxun dabadeetana ilmaheedii yareed ayay gowracday gabadhii isla markiiba waxa loo qaaday dhakhtarka dhimirka markii ugu horeysa xab booliska ay qaaday markii la baaray waxa la ogaaday inay gabadha dhimir ahaan caadi ahayn halkaas oo la geeyay jeel xagga maskaxda ilmihii yaraa dhaawac halis ahaa wararka soo baxay oo iskhilaafsan ayaa sheegay ilmihii yaraa marna inuu saqiiray marna weli uu dhaawac yahay runtii war lagu kalsoonaan karo oo la sheegi karo runtii male runtii taasi waa masiibo aad iyo aad u weyn waana qadar gabadha walaasheena Soomaaliyeed waxa uu rajeenay insha Allah inay caafimaado gacanta cadawgana ka soo baxdo haddaba sidee u dhaceen iyo maxaa laga filan karaa waxyaalaha ay soo socdo kale waxaa jira dad badan oo runtii Soomaaliyeed oo runtii xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ku dhex nool muddo laga joogo imika waxyaalaha sanad aad u badnayn ayaa wiil Soomaaliyeed mid la dhex xararay gobolka Bayer dhaxdiisa magaalo ku taalo Würzburg dabadeetan dad aad u badan buu ku laayay okay runtii dawladda Jarmalka iyo jaridada Jarmalku waxa ay u baxsheen Soomaalidu inay yihiin dad midida markasta iska sita oo markasta isticmaala waxa jira website-yo iyo pages badan oo cunsuriyiina oo runtii ceeb kasta oo dhacda soo bandhiga Soomaalidana loo baxshay dadka koobaad ee runtii midooyinka sita fadlan Soomaaliyeey hadii barnaamijyadaas ay jiraan fadlan iska ilaaliya aad bay islaam walaalayaaladiina u sheer garay